أنا waxaan ka imid xero qaxooti oo dadku ku duruufaysan yihiin hoog iyo bac ka jiro qof dibadaha jooga oo ay kala kacsan tahay baa xeradaas qaxootiga iga soo qaaday ma uusan is oran qofkan haddaad soo qaado xerada qaxootiga jooga oo gaajaysan oo baaba'san oo ay ka jabanta haddaad soo qaado sharaftaadii sumcadaada hoos u dhacaysa haddaad halkan keento biri ka maalin markuu wax noqdo kula tirsanaya waxaasoo dhan niyadiisa kuma jirin wuxuu aaminsanaa gacanta sarraysaa inay gacanta hoose u baahan tahay inay saa inta usoo qabato kor usoo qaado kiciso inaad bini aadanka soo qaado ama khamri ha cabaan ama sharaab ha cabaan ama caana ha cabaane inaad bini aadanka kor usoo qaado waxay doonaan ha ahaadaane adiga waxay kuu tahay sharaf qof kasta geedku abuurta miraheedu cunaa haddii aad nin alkuliistaa oo dariiqaa taagan intaad kor usoo qaadood la heesto nin sharaf laga dhigto oo magacii sharaf yeesho biri ka maalin dee waa nin abaal kuu hayo raga oo meel taagan marka anu ma aaminsanay bini aadanka si kasta ha u kala duruufaysnaadaan si kasta noloshu ha u kala cayaadho si kasta qofna ha u karkaxsanaado midna ha uga dansanaatee ma aaminsanay in qof mar walba baahan oo kor in loo soo qaado u baahan lagu fiirsado looga tago aduu hadda haddaad aaminsan tahay inay jirto wax la yidhahda sharaf dhac oo sharaftu ku dhacdo in qof kale laga soo agmuuqdo ama ha waalnaado ama qof fiican oo fiyow ha ahaado shalay fiideo aan daawanayay nin waa nin waalan intuu u tegayba wuxuu damcayaa inuu meelkii caafimaad soo daaweeyo ninka waalan wuxuu dhahayaa kuma baahni orod adigu soo xaar uu dhahayaa waa nin waalan qashin qub fadhiya muxuu ka doona oo uga soo agmuuqday kaamirada u qaatay wuxuu ka doonay oo uga soo agmuuqdo kaamirada u qaatay inuu ninkan meesha inta ka soo kaxeeyo nadiif ka dhigo badbaadiyo asagoo kale ka dhigo ma daawataa fiidiyoyada laga soo duubo wiilka la yidhahda kaariye iyo cabdullaahi nasri iyo wiilasha dadka waalwaalan intay geedka ka furaan oo aan loo tegi jirin dad aan la soo salaami jirin oo waalwaalan oo geed ku xiran oo dadka dila intay u tagaan oo ay doctor xabeeb geeyaan oo daaweeyaan dadkii oo hadlaya oo caadi oo caafimaad qaba oo dadkii ku dhex jira fiidiyoyo haddana la soo duubaan ayagoo qurux badan marka weliga ayaa lahay bini aadanka hoos looma fiiriyo ama khamri ha cabaan ama alkuliista ha ahaadaan ama ha ka jabnaato ama jiqa ha ku ahaato adigu ma tihid kii halkaa xaaladooda dhigay ma tihid qofka la xisaabtanaya ma tihid qofka aakhiro waxa weeye looxul maxfuudka wax ku qoray ee looxul maxfuudka qalalay qofka wax ku qoray adigu ma tihid adduunkan xisaabta iyo maabku sida u socdo qofka dejiyey ma tihid waxaad ka tahay shakhsi ku dhex nool dadkaa geemka waxaad ka ciyaaraysaa meel laguugu talagalay mar baadna ka baxaysaa oo lagaa siibayaa marka intaa geemka ciyaarayso be nice